waa kuma application-ka ugu wanaagsan ee aad ku hagaajisan kartid muuqaaladaada. sidoo kale application-kan waxa uu si gaar ah u khuseeyaa muuqaalada lagu sameeyo TikTok. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودة صاحبيال وحنا هي عبد السعيد. وقالك ما توحى كجهد لطونا وكما application كأجو ونكسن أدكو هجاجسن كرتيد مقالة هذا. سيدو كله application كان وحقوس جارة أخصية مقالة اللي سميه تيك توك وحاسبو شراء نوع عاد أخرى بدن أما وحكو شراء application كان features عاد أخرى بدن. application كان بقى حالي هذا في ان فيديو editor هذا هذا نوع اسمه سودو فضلا لكرا مقالك كانالك سبسكرايب كره لنا ودا اصحاب هذا سودو صاحبيال هذا waxaan ku kala doonaa application ka waxaan ku soo dhigi doonaa linkiga hoose linka description application ka marka aad u guda gashay qaybtiisa koodkiisa kood wuxuu ku saaray sida waxaad ku dhufanaysaa halka ka hoose sidoo kale waxaad ku dhahaysaa open project intaas waa ilse cid walba garanaysaa intaas ka bacdi waxaad ku soo gelinaysaa muuqaaladii aad u baahneed in aad ku edit gareysid dooro meesha ay kugu jiraan muuqaaladaada soo geli muuqaaladaada ama muuqaalka aad haddaba waxaan isla eegan doonaa muuqaalkan wuxuu ku saacideeyaa application wuxuu ku saacideeyaa in aad color grading slow motion effects wax kasta oo kamid ah inaad ku dartid sidoo kale application-kan waa application-ka ugu wanaagsan ee aad nooca xisaabka doontid ugu soo gelin kartid waxaad ku dhufanaysaa haddaba filter markaad ku dhufatid halkan waxa ku jira filterra kugu diyaarsan waxaad geenaysaa A2 A3 filterada kalarada kuwa aad aragtid ayaa dooranaysaa mid kamid ah ki adiga ku qancay ayaa dooranaysaa pinky blue midab kasta black and white intaas ka bacda hadda doonto waxaad tagaysaa adjusting oo dooran kartaa waxaad eegi kartaa filterka aad u baahan tahay haddaba aan isla eegno adjust ayaan dooranayaa ka bacdi saturation intensity wax kasto kamid ah ayaan saxay contrastiga waan dheeraysiinaya saturationka temperatureka adiga ayaa garanay sida aad rabtid inuu muuqaalkaaga u soo baxo vintage waxa weeye in aad ku soxo kalarada background inuu dhigaga kaaga soo ururiyo oo ku tuso qaybta dhexe saxda adiga ayaa garanaya habka ugu wanaagsan ee aad u dooran kartid marka muuqaalkaaga ama kalarka ugu wanaagsan aad sahari kartid aniga sidan ayaan isleeyahay ayaa qurux badan sharabinka waxa weeye in uu sawirku soo wada baxo ama in uu kala saaro qaybta koowaad iyo qaybta dambe background-ka inuu yara qaybta koowaad uu suucan u muujiyo ayaa sharabin la yiraahdaa kana waxa la yiraahdaa curves waxa uu cadeynayaa in aad muuqaalka marka uu halka marayo kalarkiisa ku dari kartid ama ka yareyn kartid sidoo kale waa slow motion-ka haddii aad muuqaalada lagu sameeyo badanaa TikTok slow motion-ka waxaa la sameeyaa in muuqaalada fara badan la kala jarjaro oo maaragtay dhowr kalar laga kala dhigo dhowr qaybood inta laga kala dhigo kalarka la saarayo laakiin kan slow motion-ka halkii muuqaal aad soo sameysay ayaad maamuli kartaa qaybta loo yiraahdo motion graphics oo ay leeyihiin application-ada waaweyn oo kale wuxuu ku siinayaa sidoo kale kuwa diyaar ah aad ayuu application u wanaagsan yahay marka loo eego muuqaalada gaaban ee lagu sameeyo sidoo kale waxaad tagaysaa filterada ugu wanaagsan ee aad saari kartid ki aad rabtid ayaa saaraysaa sawirada qaybkaas inuu zoom out zoom in shake adiga ayaa garanaya ka ugu wanaagsan marka aad saaranaysid waa qof iyo dookhaysa waxaad sameynaysaa filterka marka aad saartid waxaad dooranaysaa muuqaalka inta aad rabtid in uu ku sameeyo transitionka ando taasna aad ay simple u tahay sidoo kale wuxuu leeyahay application-ka wuxuu leeyahay in aad background-ka color ka bedeshid yani in muuqaalka background-kiisa dame aad saari kartid colorka aad adigu u baahan tahay taasina cid walba way garanaysaa oo border baa la yiraahdaa borderkaas qofka u baahan baa saaran kara inkastoo muuqaalada aad ugu qurux badnayn haddana se waa qayb kamid ah qaybaha muuqaalada lagu edit gareeyo aad ayuu qurux badan yahay halkan sidoo kale wuxuu ku siinayaa ratio qaybka nooca aad rabtid inuu soo baxo muuqaalkaaga 4.5 Instagram TikTok 19.6 YouTube 19.6 YouTube 19.6 16.9 TikTokna waa 19.6 oo sida ay isku yihiin halkan waa muhiim inaad baratid ratio-ka ama nooca aad rabtid inaad sidoo kale wuxuu leeyahay
first waxa la yiraahdaa muuqaalkii qaybta koowaad in uu dib ka soo bilaabo sidoo kale kan is simple ay tahay aad ay wanaagsan tahay muuqaalkan sidoo kale music text wax kasta oo aad jeceshay ayaad muuqaaladaada ku soo diri kartaa application kan anigu wax sponsor uma sameynayo balse waxaan ii sheegayaa inuu yahay application aad u wanaagsan kana waa transaction kana ugu wanaagsan aad ayuu qurux badan yahay qof walba coach aliyahay ayuu soo gashan karaa hadaba muuqaalka mar rabo inaan idinku soo dheereeyo qaybtan waxa weeye qaybta la yiraahdo resolution trim maxalli fps oo la yiraahdo trim per second waxa la yiraahdo 30 frames per second iyo 4K iyo waxyaabahaas oo dhan ayuu leeyahay waxa uu leeyahay exportigiisa ama muuqaalka markaad soo saarsid features aad u fara badan ayuu ku siinaya 60 frames per second oo ku sahlaya in aad u duubtid muuqaal aad u wanaagsan sidoo kale halkaas waxa ku qoran bitrate-ki intaas ka bacdi muuqaalka title iyo magac ayaad u sameynaysaa intaas ayaan ku soo gabagabeynaya muuqaalkii aan kaga hadlayay application-ka u wanaagsan ee aad ku edit gareyn kartid TikTok ama sidoo kale muuqaaladaada oo dhan